Soomaaliyeed waay ma la waay maxaa samayn karnaa nasiib darro shiilow koonfurta Soomaaliya waad ka warhaysaa xaalado aan la jeclaysan oo aan u wanaagsanayn dhalinyarada generationka hadda nool iyo kuwa soo socda ayaa ka jira waan u duceynaynaa waa dhulkayga Soomaaliya midna waa jeclahay laakiin qadiyada reer Somaliland maxaan ku taageeraa waa su'aal weyn shiilow kolley qof kasto aragti gaar uu ka leeyahay arrimaha Somaliland marka loo fiirsado dadka reer koonfur oo aniga adiga ka midna adigoo reer Somaliland rabtay sorry aniga iyo shacabka Muqdisho degan ama koonfurtaas degan nimay aniga dadka qalbiga wanaagsan ee positive wax u fiirsan ka mid ahay ma jeceshahay Somaliland inay Soomaaliya ka sii mid ahaato ha waa iska jeclaan lahaa laakiin hadda maxaan ku jeclaaday nimanka inay ictiraaf qaataan wariyo 30 sano aniga aan iskuul waayay on Soomaaliya maanta hooyo Soomaaliyeed caafimaad aysan haysan waxbarasho aysan jirin qaraxyadii ugu dambeeyay walaalkeen macallin iyo kii caawa iyagu way ka badbaadeen nabadda tireen nabad kaliya xataa lagu ma ku dheeli tiri karaa xataa marka balance sameynay Somaliland waxyaabahan ku taageer waxa kamid ah dimuqraadiyadda afkaarta horta ah iyo electionka qaabka horumarka ay u gaareen ilaan waa duul walaalaha oo isir kula wadaago oo dhiig kula wadaago maanta haddii la aqoonsado waxa isweydiiyay haddii la aqoonsado Somaliland ma waxay faa'iido u tahay gobolka Soomaaliya oo dhan mise waxay naaqos u tahay Soomaaliya oo dhan ani waxa ii soo baxday haddii nimanka u qalma 30 sanadood aan qabiil isku dilin oon isxadin doorasho iska boobin kuraasta iska wareejinay annagana waa arna farmaajo sanadii bara wareeji laga kirlay muuse bixi maalintii u dhamaato cirra hadduu noqon rabo cirro farta ka saara hadduu Faysal Cali Waraab noqon rabo fartu ka saara gaala sooma dhex gasho xalan looma fadhiyo looma meeriyo masiirkooda mustaqbalkooda gaala uma yeeriso inta isqabtaan gaala xalana kama soo hadasho ragga wuxuu waa adduun wax la noolaadaba hadday cirka aado shiino waa 60 sano xigdi iyo xaasidnimo iyo xaqiraad walaaltinimo horumar annagana ku heli meeyno xaasidnimada waxay kaga xuntaa naxasnimada iyo calaamadaha kale leesku naco xaasidnimada waa number 1 kii aad xasdeysana wax ka tari ma kartid oo waxba kama qaadi kartid adigana way kugu soo laabanay dhulkii kula galaysaa marka gunaanadka dadkii waxaan rabaa miyay u qalmaan yes they deserve way u qalmaan ma nacabtaa iyo ma jeceshaa maba joogtaba way u qalmaan marka loo fiirsho ma taqaanaa gacan dhiibka siyaasadeed iyo doorasho aqbalka iyo dimuqraadiyadda iyo sida beesha caalamka ee Hargeysa ugu laafiyoonaysa Burcay Burami dhulka Somaliland dhan ilaahay waxaan ugu baryeynaa ictiraafka fiiri maanta baasaboor leeyihiin waa dhoofaan waxba kama maqno mar haddii UK baarlamaanka UK uu ka fadhiisanayo maxaan ka sameynaa Somaliland sankay u saarantaa saaqabo 10 sano ka hor lama dhihi jirin 20 sano ka hor lama dhihi jirin waxa la arkaa dimuqraadiyad aan urdan ahayn waliba laba jeer qaan gaartay ilaa qaan gaarku waa 15 sano 30 iyo dhowr sano sii marusa anigu haddii caawa UK fadhiisatay habeen dambe waxa arkaysaa Mareykanka Washington aqalka cad oo laga leeyahay maxaynu ka yeelnaa xukuumadda Hargeysa wad arki doontaa shiinow haddaynu isla noolahay waa soo ku fi okay game-ka bilaabanayna inteenan game-ka bilaaban waxaan rabaa hadalladaadii inaan wax yar ka iraahdo aan 2 daqiiqo ku soo koobo wax diiday waxa weeye horta waxna waa farsamo waxna waa mabda wixii farsamo ah ummadda Soomaaliyeed wax badan ah ka khaldan wax badan ah ka xun waa farsamada waa laga doodi karaa waa laga wada hadli karaa sideeba ummadda Soomaaliyeed dan ugu jirtaa waa la isweydiin karaa waana laga wada shaqeyn karaa dadka Soomaaliyeedna meel bay wax wada wadaan waxna waa mabda horta mabda principle-ka mabda ummadda Soomaaliyeed waxay wax ku tahay waa midnimo maanta qofka ku talinaya Soomaaliya hala kala jaro iyadoo Yurub ku nooshahay Finland iyo Germany baa waxay ku heshiiyeen inay midow Yurub samaystaan oo u socda inay hal dal noqdaan oo hal baasaboor hadda ka dhaxeeya oo maxaa ku raahday hal lacag ka dhaxaysa isku af maaha isku tiro maxaa ku raahday tiradu intee kala leegtay waa la socotaa midowgii Afrika raba inuu Afrikaan midoobo marka inagoo gobolka ku nool oo Ethiopia 100 milyan xagga inaka xigto oo dhul hadda inaka maqan yahay oo Kenya oo 50 milyan xagga inaka xigto oo maxaa ku raahday baddi inaku haysataa maanta aqliga ku talinaya dadka Soomaaliyeed ha kala go'o horta aqli saliim ma dadka Soomaaliyeed aniga mabda ahaan waxaan aaminsanahay reer ku raba ha ahaado
ciduu rabo ha sheegto Soomaali horta midnimo wax ku yahay wax yar baa hataa ay xustay waxa tii farmaajo muddadii ku darsaday waa sax farmaajo ku darsaday waana ahay doorashada in xilligeedu ku qabto laakiin waxa ku sheegaya taariikhda inaad ahayna u maleynaa musabixi waxa ka horeeyay Siilaanyo 2010 baa la doortay waxay ahayd doorashada inuu qabto 2015 laba sano ku darsaday waxa ka horeeyay Daahir Yaale Kaahin waxa la doortay 2001 waxay ahayd inuu qabto doorashada 2006 wuxuu ku darsaday 4 sano 2010 doorashada qabtay Soomaaliland maalinta baarlamaan bay doorteen barxad batuun baa kamid ahaa oo aad ummadda Soomaaliyeed u wada garanaysaa doorashada baarlamaanka Soomaaliland hadda la qabanayay doorashadii ka horeeyay ee Soomaaliland baarlamaankeeda ay qabato waxay ahayd 2005 waxay baarlamaanku u fadhiyeen 16 sano Soomaalina 4 jeer bay bedeshay kii cartabay la xil ahaayeen marka muddo kororsiga xagga waa ka jira waa farsamado ay tahay in laga gudbo laakiin Soomaali reer ka rabta ahaw waxa way gobolka rabta ka soo jeed dadka Soomaaliyeed waxay wax ku yihiin midnimo booso wax yar ku sheegaa nimanka nabad Soomaaliland waa haysataa horumar waa gaareen laakiinse weli wiilka Somalilanderka ah ya ani waxa uu tirin Somalilander aan ahay weli wiilka Somalilanderka ah oo Hargeysa ku nool iyo kan Muqdisho isku wada Soomara waa soo wada tahriibaan waa fahmaysaa Soomaha weli wiilka Muqdisho ku nool ama Garowe ku nool iyo kan Hargeysa ku nool iyo kan Baydhabo ku nool Uganda jaamacad wada tagaan reerka waliba waa nin kaladan ma fahantay dadka Soomaaliyeed midnimo markii ahaayeen waa la soo arkayay marka leedahay qabiil iyagu isuma dilin qabiil 94 intii kala dhexmartay Soomaaliyeed cid kala dhexmartay waa yaraayeen hadeer qabiil waa ogtahay oo cid qabiil isku jecel ma jirto aakhirka hadaa aragto daarood wada socda biri iyaga 6 jifo kala noqonaya iyaga si kala noqonaya isaaquna sida daarood iyo hawiye u kala baxaa iyaga habar doorashada markii la gelayo dimuqraadiyadda sanduuqa ha tagto xisbiyada arkayso habar loo kala fadhiya xaqiiqdan ka wada hadleena moogtahay runta iska xanuun badnaato marka booso anu waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed midnimay wax ku yihiin midnimo wax ka hooseeya ma qaadan karno wixii farsamo oo shalay xumaaday iyo waxa maanta xun qof kasta oo Soomaaliyeed baa laga rabaa aniga inuu hagaajiyo أنا برلمانك إنجليز كتالي معها وحقوق لبدي كن يأفرتي بتالي سومالان عقدر يمتجابن والله وشيء أدونك international order باجرا شينا كذا حقله دل آن يسوي كلام أو كويشين ما كلام وكذا واقوس سنة شينا مرك ما واقوس سنة دم لها شينا من ما وحلقوا جارا من ما لقوا مالك استلقوا وقوا هذا الكيك هو رئيسها من ما مديدني لكن من ما حديثه من ما سومانا لقى سجايو أو كفرت عن كسو جين لقى لايه محيطها مرك هاك جواب هالك سكاي جوابي waxaan ku iri dhageyso meel kale ma aadi dhageyso ummadda Soomaaliyeed waxa ka khaldan maada diideen ka khaldi wax koonfur ma soo qoy waqooyi bay ka khaldan oo cid walba ka khaldan meel walba ka khaldan ninka nabadda haysto ee ilmihiisa iskuul u dirsado baawur la girisul ku wato in ninka soo cunugiisa saaran qarax lagu dilay wariya وصاص كويستا عمرها الكويستا مالك تسدلونا انت wax ka qaldi sheeg anaga wax laga qaldi waxaan ku sheegayaa dhageyso waxaan ku sheegayaa nabadda horta adiga qarax dhacay waa mushkilad amni daro oo jirta weeye qadar habi weeye niyo dhageyso adiga horta aan ku sheego argagixiso international argagixiso wariya Jarmal ku noolahay waxa ka dhaca fal argagixiso ka dhaca Jarmal maxay Mareykan ka dhaca Jarmal maxay fal argagixiso adduunka Ethiopia ka dhaca meel kasto ka dhaca ma fahantay marka halakan baabuur qaraxa ka dhacay waxa ka hadlayso waxa keenaya inuu dhaco ummadda Soomaaliyeed kala daadsan haday mid ahaan lahaayeen oo dawlad xoog ahaan lahaayeen qarax kama dhaceen dhulka kama qanacsanaayeen badooda difaacan lahaayeen hadaya waddanka inta kala saarayo horta geemka inoo bilow halka geemka abilawne maya xamaasada ay u kacsan waxaan rabaa inaan ku weydiishiine haday waxa tiri midowga Yurub hal baasaboor leeyahay warnay midowga Yurub in hal baasaboor loo sameeyo jaamka ee raboorada horta laga hortago yaa inaa fahanto
oo fiise iyo waxaas la diiday dadku isku qulqulaan iyo in la caawiyo shaqaalaha waddanka kale u caawiyo waay walaalow iskama soo degi kartid Finland Jarmal baad degan tahay iskama soo degi kartid adoo isrejistareerin aniga like Finland meesha doona ka degi karaa adigu Jarmal meesha doonta ka degi kartaa laakiin anu Jarmal iskama degi kari Finlandes baan ahay Jarmal baa taa horta wax isku jiro dadka yaa la sina ma jiraan tan Somaliland ani waxaan rabaa shiina doodan way soo afjarmaysaa war midnimo Somaliland waa kula ogolahay waana ka jeclahay laakiin waa laga fursan laayahay Somaliland maanta waxay xaaladda ku sugan tahay in adeer oo aan qiranno iyo xaaladda koonfur ay ku sugan tahay maanta deni iyo waxa la kala celinaa waa arta boosaas wax ka socda war jawhar xuud baa laga celinaa war shabaabku waxay joogaan dhuusamareen banaankeeda war waxay joog farmaajo gadaal dalku celin hor u socda madaxda Somaliland wax ka leeyahay marka waa niman ku imaado horta niyahow Mareykan wax ma dhaanto niman ku imaado cod election ay ku imaadaan election cod qof ay ku imaadaan miya taas Afrika laga helaa Ethiopia laga helin Nairobi laga helin oo Kenyatta laga helin oo musuq ah oo xoog ah abi wuxuu bedelay fikirkii Tigreega Uganda intuu haysto waa aragtay South Sudan waa aragtay Sudan tacaaliga waa aragtay aniga inta la dirisa waa aragtay ninkii Tanzania ka dhintay waa aragtay Soomaaliyana waa u jeedaa raggan miyaysan u qalmin karaamadooda markaad u ogolaatid waxay ku xuyeen u sheeg laakiin imaamadda ha haysan shine sida imaamadda sida maya adiga dhageyso Somaliland waa dad walaalaheena wixii horumar oo ay gaaraan mala dafirayo waxaan kuu sheegayaa adiga hadda waxa leedahay Somaliland waxaasay gaareen waxaasaa naga xun aqliga saliimka ah walaalka adiga walaalka hadduu maanta xanuunsado waa ka tegaya cusbitaalka uga tegaya miyaa oranaysaa mise walaalka waa dhinac joogaysaa waa isgarab galaysaan dhageysade horta dhageysade baxnaanidiisa ka qayb galaysaa waxaan ku iri haddii koonfurtii Soomaaliyeed ee mushkil ka jirto ya Somaliland cid uga sukaysa xalkeeda ma jirto waa walaalkood iyaga waxa laga rabaa Soomaaliyada kale mushkiladeeda xalka inay qayb ka noqdaan waana qabaa maanta haday midnimo ogolaan lahaayeen in mushkilada Soomaaliyeed aysan xalkaaba tagteen waxaan kaloo ku sheegayaa waxa tii dimuqraadiyad bay gaareen warniyahow taariikhda dib u eeg aadan Cabdulle Cismaan Allah u naxariistay 1960 madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliyeed ma qabiil baa lagu keenay sanduuq baa lagu doortay Cabdirashiid Cali Sharma ka bedelay 1967 aadan laba jeer baa la doortay ma qabiil baa lagu doortay Allah u naxariistay mise waxa lagu doortay cod baa lagu doortay Soomaalida sanduuqa kana hadda arkayso oo qabiilka iyo habartu ay daba joogto 1960 konton sano ka hor 60 sano ka hor baa Soomaali oo aan qabiil lahayn ya oo adiga oo nin hawiye ah ka soo bixi karto boosaaso baa Soomaali waxay isku dooranaysay one man one vote cudur baa Soomaali galay cudurkaas reer Somaliland baa xalkiisa laga rabaa adaa xalka laga rabaa qof kasta laga rabaa cudurka hadduu ina ka baxo adduunyada la tartamayna tamidooga yiri waan ku sheegaa cudurku ku jira marka cudurku ku jira ma Somaliland war Soomaaliya dhan buu ku jira war waxay la cararayaan baa cudura war geemka no blow dadka Soomaaliyeed baa ka saarayay no blow geemka no blow geemka Soomaaliya Somaliland maaha geemka aniga waa soo eeg midnimo iyo i'tiraaf saas waay adu waxa taagan tahay Somaliland i'tiraaf ay u qalmaan ana waxa taagan inay hesho waligii ana waxa taaganahay dhageyso ana waxa taaganahay dadka Soomaaliyeed midnimay wax ku yihiin midnimadu waa muqaddas baa taagan muqaddas hadii la waayo xal ma haysid laakiin ya hadii la waayo midnimadii xal ma haysid ma la waayo karabay see loo waayo waa muqaddas aan ku yiri halka marka halka 30 sano meey maxaa soo soo i'tiraaf soo sano aawad adan ku weydiiyay ma hayso warnabadu haystaa wiilka Soomaaliland la Ingiriis waxa markuu wataa Jarmalka u soo ordeeyay wareede war harakan jar soo ka soo tahriibiya ma war ya hargeysa jooga war ma gafa soo martay intee ciyaal Soomaaliland kula socday intee kula socday ka jawaabay yaa ka jawaab ina ka jawaab intee kula socday war adoo soo tahriibay war nolol rabaa nolol wax barasha rabaa caafimaad baa war tahriib hadii la Brazilian soo tahriibay guud baa iska gelinayna dhageysta war dadkaaga la hadal waxa ay nii sheegayaa dadku inay murmaan ma fiicna midnimo midigay bidix ma ka maarataa qofka dadku midnimo wax lagu yahay Soomaali shalay midnimo wax ku ahayd
maantana midnimo wax ku noqonaysaa haddii soomaali kala go'aysana waa hawl iyaga u taala ma aha wax ingiriis u yaala ingiriis dabka hala saaro nacalaa shaytaan ku yaalay hala saaro midnimada soomaaliyeed muqadas weeye soomaalida midnimadeedu waa muqadas weeye waa muqadas maali baale waa layna sitaa isbiid jalanji ha laga faa'iidaysto